بسم الله تليها عيدن كدولك حوق دولك الصومالية تليها عيدن كعركة تليها شقيبها هجامة تليسك جود تليها شا كلية ده يدوكسية ده تليها شجوتوين كأبندوليا شوضة تليها شورهذا كحجنا ضوضة ضمان سراكيشة قيمها بدن هل كان كسوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suurta galiyay maantay inaan halkaan isugu nimaado saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee halkaan fadhisa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo koox gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiyo gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warhayn waxay wax ku qaba karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaq ku ah oo ay shalay u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn hadday timaado inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayna waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinayna ay meesha ka baxaanna waxa imaanaysa laba isku soo laabata inaysan dhicin taasna nolosha ka dambaysa ee ay salka ku haynayso xogogaal u tiin waana soo aragnay waxaan rabaa marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhamaantiin ba idin day doona isxog waraysiga iyo wax aragti ah oo isdhaafsanaysan haday jiraan iyo hogaamada taliska guud in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doon yahay lahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddis ku tahay isagoo fiirinaya dhaartay uu shalay u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu soo maray saaxiibadii faraha badnaay ee kala duunaa ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixdoodii lixaad ku waay waxaan rabaa marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanay inaan ka fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu wadadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aakhirkana sababa meeshaad ku dhima lahayd ama meeshaan ku dhima lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkaan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shalay u dhaaranay inaan ilaalino wadajirka ummadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qabaan iyo qiimiga dariiska uu lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaan wax ku qaban karnaa taliya jira taliya xigeenaa jira taliya ciidan dhulaa jira taliya ku xigeen ciidan dhulaa jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiyaa jira taliya guutayaal hogaamo dhammaan dadkaas oo dhan laakiin ogaada qof kaligii gaar wuxuu qaban kara ma jiriya
يا مسؤوليتي aan dhamaanteen shala u dhaaranay taliye iyo taliye xigeen iyo taliye nuuciidan iyo taliye qayb kale goor gaar ma u fuli karaan no